ورحمة الله وبركاته. Dua saxbal kuna soo dhawaada kanaalkeena Amir Tech. Shallamada muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay afar farsamo oo ku jirta markaasi WhatsApp GB-ga inaan kula wadaago. Haddaba daawada ma og tahay haddii aad tahay dadka WhatsApp isticmaalo oo markaasi iska jecel in uu qofkan kale inuusan ogaanin fariintiisa inuu furay in kale. Haddaba saxbal waxaan rabaa markaasi inaan kula wadaago WhatsApp-ka afar waxyaalood oo GB-ga aad ka qarsan karto. Koowaad waxay tahay in aad maaragtay qof markii aad u dirto fariintaasi markii aad fariinku ku soo diro fariintiisa furto in aysan WhatsApp-ka uu soo saareen waxa la yiraahdo calaamad buluuga xagga hoose labada falaarood inuusan buluug ka dhigeen inuusan wax buluug ah uusan ka dhigeen. Talabaadna waxay tahay in haddii aad qof aad fariin u qorto in uu kaliya uu siinayo hal tig halka tigna qofkii markuu u tago fariintaadii adna waad aragtay laakiin wuxuu kaliya siinayaa in aad hal tig taasoo ka wado wali qofkani fariintaadii WhatsApp-ka ma soo gelin maalmahan dhan. Saddexaadna waxay tahay in aad maaragtay codka haddii uu qofku soo duubo codkiisana dhageysto in uusan u soo saarinin blue tick inuunan codka inuusan u dhiidon qofkaasi codkaadii waa la dhageystay. Afraadna waxay tahay in haddii aad qoraal soo qorayso inuusan qofkaasi ogaanin inaad qoraal u soo qorayso xitaa haddii aad recording ama codada u soo duubeyso. Haddaba ina mari aan kula wadaagay sida aad u sameyn lahayd farsamooyinkaas. Ugu horreyntii waxaad soo galaysaa WhatsApp GB-gaada kadib waxaad sameynaysaa inaad ku dhufato saddexda dhibcood kadib waxaad ka sii dooranaysaa GB settings. Markaad ka sii doorato kadib waxaad ka sii dooranaysaa privacy and security. Markaad ku dhufato kadib waxaad ka dooranaysaa contact us. Hadda kulli way wada furan yihiin laakiin aan ku sharaxo hide blue ticks waxay tahay macnaheedu qofka hadduu uu fariin uu ku soo qoraa fariintiisa furto in qofkaasi aan loo sheegi doonin in aad fariintaada furtay oo calaamada blue tick ta loo saarin. Hide second tick-na waxay tahay in uusan qofkaasi uusan ogaanaynin inaad WhatsApp-ka soo gashay oo aad fariintiisa aad eegtay kaliya markaad u jawaabto buu ogaanayaa inaad WhatsApp soo gashay. Markaas ku leeyahay waxay tahay qofkan markuu fariin ku soo qoro hal tig ah ayuu u dirayaa kaliya halka markaad khad ku jirto WhatsApp-ka uu soo diro laba tig ah. Marka taasi waxay ku cadeynaysaa in uusan qofkaasi uusan khadka ku jirin oo markuu khadka soo galo ay laba tig soo saaraysaa. Haddaba saaxiibayaal afraadna waxay tahay hide blue microphone in WhatsApp-ka inuusan calaamada buluuga uusan soo saaraynin oo markii codkaada la dhageysto inuusan loo sheegin in aad qofkaasi codkiisa dhageystay. Takalla waxay tahay markaasi hide typing recording waa markani waa andawayaan laba wax ayay isku soo dareen. Labadaas waxay tahay haddii aad qoraal soo qoraysid wuxuu soo qoraa typing ma soo qori doono haddii aad calaamada tigta oo hide aad iska saarto. Recording-giina sidoo kale qofkaasi ma ogaanayo xilliga wax u soo qorayso kaliya wuxuu arkayaa xilliga fariinta aad u soo diriso kaliya waxaad sameynaysaa markaasi inaad aado okay. Haddaba saaxiibayaal sidaasi ayuu kugu xirmay WhatsApp-kaada GB-ga oo fariin walba oo qof walba kuu soo diro way adkaanaysaa inuu ogaado inaad fariimihiisa aad furtay. Haddaba haddii taad ma kursan soo boqotay fadlan ka codsa subscribe saarto video like saarto ayaa wasiita billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.